horta ugu dambeyn waxaan leeyahay waa ujeedin dawanan only macda YouTube channelkan hadaa fiirsanoosid intan aad soo gaartay subscribe sar and YouTube wax enjoy ugu yahay waa taqaanaa like share comment dhammaan enjoy ugu dhig insha Allah. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دقيستيال ميرو جوجتان سوبر مقل العدد اللي سو غارايو كسو دواد برامج كتستان قونيت كراديها أبوية برامج كتستان قونيت كراديها أبوية ما عنده حافظ ترتمية حافظها عرتا بغاتي حافظها كعرسنا إن النظام كأي شرعي برامج كأي طلعي عليان وحاسدو كلا عن وشينا إن عن لغة كريم موبايل ديديا إنترنت وحاول مدا sidoo kale lama arki karo tartame xaafad u soo tartama inuu tartanka ka qayb galo haddii la idinku ogaado waxaad guud ahaanba aad weynaysaan dhibcihii aad shaqaysateen dad badan waxaa la arkay iyagoo xaafad kale usoo tartamay haddana xaafad kale usoo qayb galay marka oo tartankii laga saaray marka idinkan waxaan idin sheegaynaa inaad iska soo saartaan haddii ay jiraan tartame xaafad kale usoo tartamay وأجل مركز محسين أيام محمد سعيد حلالي ما عنده حتى ترتمي دون حافظها عرتي بقاتي سؤال شكوات حافظ اللغو بلاوي يخلطور في نصنعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمان برشا الصوماليات والبعين كهرة يتخترياش الجوغان البقاتي حافظك انت عرتا الله يسول هذا ترتم على أسرع الجندون إن شاء الله. عرتا البقاتي هم في مصر درسات السيئة الوقع بشان قرطورك سؤال عندي اللي هو بلاد لها لمبر حكومات الأمان سؤال اللي هو بلاد لها هلك لمبر كلام وقندنا قد لبعض سؤال لبعض الكهرات من هم خلاص الإسلامية الحضور ولا بسم الله مجرد وعبد الله بوادم وترتمي عبد المجاتي لمبر كلام بسم الله الرحمن الرحيم. مرة استرسلت أول كسر موسى حسن موسى وطرت مع حافظ عادة لما كون نسيب كمان دوية لما بنايا كله. بعد سؤال محمد بلال الفلاح حافظ عادة مركز الوقتي سؤال شباب القادم لما رجع لقى الكرون ولا حافظ يا مركز عزيز عيش كل كلام السينيا لما رجع الوقتي أذكر المستوى من ربنا إبر ليه حال سدة سديت اللو عفر التوال وإبر له حال سدح سديت اللو عفر التوال حافظك أنت بترتمي ساعة أيوة حلوة الكلام فرها وسدح سديت الليل سيارة التوال إبر عفر فرها وسدح سديت الليل سيارة التوال إبر عفر سؤال الحمد لله والجماعة يدونا كلام الله فرها وفر حسين tartanka aad buu xiiso badan yahay mar kale waxaan u sheegaynaa tartamayaasha xaafadaha ee magaadka iyo carto in ay sharciga barnaamijka nala ilaaliyaan haddii su-aal ay ka jawaabaan oo laga qaldo waxay soo qoran karaan luqad guddiga ay usoo gudbinayaan isla markiiba looga jawaabi doonaa iyaysan dhicin in buuq iyo sawaxan iyo waxyaabo la mid ah in iskuulida uu ka dhaco waxaan rajeynaynaa in nidaamka ay nala ilaalin doonaan xaafadaha tartamaya waa xaafadaha carto iyo bagaadka سؤال كواد وحاسين تستمعش حافظ عرضه وسؤال ديني يعني عرضه اللي قاعد سؤال شو هو العيس أصلا مرحوم جيريودي أيها إفكا كجت جاي لما قدرت أو كو هاي يو عباء ويل يو جبر أو كو عباء هنا كنت جاي هنتنا $9,000 هذا الشيء لعقت أي كل هاي جبر كو عباء هنتناس وقتك وصل إلى ترتمياش حافظها عرض جوارته. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنين. موضوع سكنت أنت أمك سلام موسى حسن موسى
u tartamaya xaafadda carta su-aasha jawaabteeda isku dayno waxayna la tahay 450 jawaabtu waxay tartamahaasi ka socda xaafadda carta sax iyo qalad guddiga su-aasha qoraayntii koowaad ee carta aan weydiino jawaabta ka bixiyeen waa mid sax aan ahayn su-aasha waa tii labaad su-aalaha guud iyo tii koowaad aan weydiinayno tartamayaasha Embakasi waa diini su-aasha waxay u dhacaysaa sidan marxuumad geeriyootay ayaa ifka kaga tagtay saygeeda gabar ku hooyay aabba ah wiil iyo gabar oo ku aabba ah waxayna ka tagtay hantidan $12,000 haddaba sheeg lacagta ay ku leedahay gabadha ku aabbaha ah hantidaas waqtiga waa u dhacay tartamayaasha xaafadda Embakasi jawaabta kamid ah بسم الله أنا وعبد الله ميوادم كم ترسم تسمعش عافية البقاتي سؤال جواب كذا أنا إن شاء الله كم يشم بقولك jawaabtu waxay tartamahaasi Embakasi ka socda sax iyo qalad guddiga su-aasha qoraayntii labaad ee barnaamijka intii koowaad aan weydiino Embakasi jawaabta ka bixiyeen waa mid sax aan ahayn qaaday 14 su'aalood ee aan weydiinaynay tartamayaasha xaafadaha carta iyo Embakasi runtii wuxuu ahaa tartanka maanta mid aad u xiiso badan haddana natiijadii la filayay aan imaan natiijadii maanta tartanka waayahay maxamed natiijada maanta tartanka waxay noqon doontaa sida tan waxaa tartamay carta iyo xaafadda kalente Embakasi waxaa markaasi cid walba aan weydiininay 7 su'aalood wadarta guudna 14 su'aal ay ahayd waxaan ku bilaabnay su-aasha xaafadda carta 7 su'aal aan weydiinay waxay ka jawaabay ma jirto haddii kale dhanka haddii ka faa'iidaysi aan fiirinana ma jiro wax ka faa'iidaysi ay markaasi heleen sidaas maanta carta waxaa halkaa markaasi ka kaysatay eber halka xaafadda kalente Embakasi ayna 7 su'aal aan weydiinay 7 su'aal waxba ma ka jawaabin oo golyahan markaasi waa ay markaasi gafeen waxaa markaa ay heleen hal dhibic oo ka faa'iidaysi ah maanta hal iyo eber waxaa ku baraysay xaafadda Embakasi berito waxaa markaas wada ciyaari doona gruupka e oo markaas ay ku madarsan yihiin Baalguri iyo Goday halka imaada berito waqti fiican si aad tartanka uga qayb gashaan runtii tartanka oo idaacadda ka baxayo dad xaafadaha ka qayb qaadanayaan oo la rabo inay aqoontooda soo bandhigayaan haddana aysan hal su'aal xataa ka jawaabin runtii waa waxyaabo aad runtii marka la maqlo loo xumaado su'aalaha aan dadku weydiinaynay Maxamed Saciid waxay u badnaayeen dugsi dhexe iyo dugsi sare gaar ahaan form 1 iyo form 2 haba u badnaatay form 1 form 1 su'aalaha form 1 laga soo diyaariyey iyo fasalada 7 iyo 8 dugsiga dhexe ah haddana in laga jawaabi waayo hal su'aal xataa runtii hal shay oo inta badan waxay juhdiga soo saaraan inta markaa fiiriyo in telefoonkan kaliya ay wax markaa kaga jawaabaan stuudiga qof soo bila arkaysa oo telefoonka rajo kale in su'aal laga soo jawaabo marka waxaan leeyahay xaafad walba waxaan u sheegaynaa in ay dib ugu laabtaan wixii ay soo barteen oo muraajaca ay sameeyaan kaliya aysan isku haleen telefoonkaas shakhsiga ka soo wacay shakhsigaas wuu qaldi karaa asi xataa wuu qaldanaan karaa marka waxaa fiican aqoontaada inaad adiga ku kalsoonaato haddiiba wax lagu soo baray waa inaad aqoontaada ku kalsoonaataa qof telefoon kuu soo dira aad ku kalsoonaan haddii aqoontaada aad wadato oo miis ka imaado dabcan aan waxay ila tahay inaadan waxba gafeyn laakiin haddii qof telefoon kuu soo diray aad sugto taadina waad weyne tii lagu sii lahayna waxay noqonaysaa qalad marka waxaan rajaynayaa in ardada afgooda ku sugan in waxbarashadooda ay xoogga saaraan inta maanta 14 su'aalood aan xaafad weydiin xaafadihii haddana ay dhici weydo su'aal toos ah in laga jawaabo oo 8aad iyo dugsi form 1 ah waa waxyaabo aad loogu xumaado runtii marka halkaas aan ugu bixinaa berina waxaan tartami doonaa xaafadaha Baalguri iyo Goday oo group A ka wada tirsan waxaan rajaynaynaa iyaguna inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay kusoo xaadiraan xarunta oo barnaamij qurux badan halkan uu nooga baxo guudaan barnaamijkan waa naga intaa dhegeystayaal anigoo Maxamed Xuseen Cusmaan maada barnaamijkeeda la socodsiinayay dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Qamar ayaa su'aalaha inoo soo diyaariyay isla markaana tartanka inoo taabagelinaya Maxamed Saciid Xalan wuxuu ahaa guddiga jawaab celinta farsamada wuxuu Cabdullaahi Maxamed Qadar Starka barnaamijkan mid lamid ah kulmi doono sidaas nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh